in gabdhaha naafada ah guriga markay joogaan la siiyo rag aysan rabin jooskooda ahayn oo la yiraahdo naga asku wax la dhaho ma aad caafimaad anigaygan maanta haddaan xanuunsado ma jecel inaan aado caafimaad sababta aan ku aadi waayena waxaa waaye maba lahanba agsis waxaana hooyo caruur leh xaas ah degan magaalada Muqdisho ganacsato meherad yar meeshaan ku haysato maadaama aan ganacsato ahay waan ka duwanahay ganacsatada kale waxaan uga duwanahayna waxaa waaye inaan ahay gabar naafa ah oo haddana shaqaysato kaliya ta fikirkayga ganacsigayga bas kuma koobno waxaan u ololeeyaa dadka baahiyaha gaarka ah oo mar walba aan ritooda ka shaqeeyo gabdhaha naafada ah way dhibban yihiin waxay ku dhibban yihiin guryihii waxbarashadii socodkii wax badan bay ku dhibban yihiin gabdhaha yararka oo naafada ah guryaha jooga joos male meesha ilmaha yararka ah oo kale oo ayaga facooda ah oo cagaha qabo iskooladii dugsiyada loo diro ayaga dugsiyo ma aadaan iskoolo madrasa ma aadaan guryahay joogaan weelashay dhaqaan waxaa kaloo caqabad ah oo labaad in gabdhaha naafada ah guriga markay joogaan la siiyo rag aysan rabin jooskooda ahayn oo la yiraahdo naga asku wax la dhaho caqabadaha dadka naafada ah iyo accesskooda haddaan ka hadlo gurigayga markaan ka soo baxo daqiiqadihii aan isku soo gaari lahaa suuqa daqiiqado ka badan aan ku soo gaaraa ma laha sharci kala hagaaya baabuurtu iska socdaan kala joogsanaya ilaa qof Soomaali ah oo ku damqado istaagayo ka kala celiya maana ma ka istaagayaan baabuurta laamiyada oo kale ma goyn karaan dadka naafada ah kuwa baaskiilada watana ma laha meel loogu talagalay oo ka kori karaan ma laha anigoo kalena dadka biraha watana waxa waaye meel ay ka digi karaan ma leh waxbarashada iyo caafimaadka ayaa la mid wadankeena uu dhismayaa dhismo xoog lahaa ka socdo saan ognahayna burburka Soomaaliya oo dhacay waxaa ku naafoobay dad badan oo naafa ah adduunkana haddii la fiiriyo dadka ugu naafada badan baana maalin walba naafooyna waxaan rabaa oo jecelahay in niyadda lagu haayo qof kasta oo muwaadin ah Soomaaliyeed inuu xaq leeyahay xaqiisana la ogaado dhismahaas markii la dhisayo laga qayb geliyo loo sameeyo la ogaado markii la sameynayo niyadda lagu haayo inay jiraan dad aan access u lahayn meelo badan waxaa kaloo jiro in annagii markaas inay dadka naafada oo dhanba inay wada tuugsadaan loo maleeyo aniga oo hadda dukaankan ii furan yahay mar dhow qisa igu dhacday jaamacadaha magaalada Muqdisho jaamacad ka mid ah ayaan raadiyay meel aan ku ogaa oo awal aan ku aqaanay baan ka raadiyay jaamacadii waan gargaraacay albaabka la iga furay la ilama hadlin wallaahi allaha sahlay ilaahay ku kaalmeeyaa la kabna waa la iga siistay xataa la ima weydiin waxa aan u socday waxaan jeclaan lahaa dadka naafada ah inay ka qayb qaataan golaha fulinta garsoorka dawladda inay ka dhex muuqdaan maadaama ay yihiin dad loo baahan yahay fikirkooda wax badan dalka ku soo kordhin karo ayagana moral u noqonayso oo ayna noqonin dad naafa ah oo naafanimadooda meel la fadhiyo naafa tahay adigu joog sidii aniga la ii yiri allaha sahlo noo jaamacad u socdo oo kale ayagana inaanan la dhihin garsoorka maamulka fulinta waxba kuma lihidin ee laga qayb geliyo ururada xuquuqul insaanka hooyooyinka maxay ahayd ay gabdhaha naafada ay ka dhex muuqdaan oo xibintooda laga siiyo aan jeclahay